16 sirood oo wiilku jecel yahay in qoftiisa ay samayso. Qaar ka mid ah kuwani waxay ku dareemaan kalsooni dheeri ah. Waa waxyaabo ku salaysan xaqiiq iyo dareen. Kaliya waxaad ogaataa qofta samaysa 16kan arrimood ay jeclaan doonaan qofkaas xiriirka kala dhexeeya. Yaan hadal kugu daalin. Let's go. Number 2. Selfie inay wada galaan. Selfie qofkaaga inaad la gasho xasuus ahaan aad u dhigataan waa mid sii kordhin karta jacaylkiina iyo kalsoonidiina. Number 2. Midda siisa dareen kalgacal ku dheehan tahay. Waad fahmi kartaa dareenka kalgacalku si habsami leh ula joog, xishmee oo soo dhaweyso. Markasta uu rabo inuu kaa fogaado. Markuu khilaaf yimaado xaliya si degan. Adigoo muujinaya dareenka aad u hayso inuu kugu sii weynaanayo kaliya dhabti way u baahan yihiin. Number 3. Mida markasta dhibta isaga fowdo iyo kaftan oo kaliya ka dhexeeya. Mid ayaa waayadan dambe la ogaaday oo tilmaamaysa gabadha ula kaftanta qofkeeda dhibtana maalin kasta kaftankeeda aan laga xanaaqayn ay sababi karto in si saayid ku sii jeclaado. waa xaqiiqooyin la hubiye. qofkaas waxa uu rabi doonaa kaftankaaga iyo dhibkaaga markasta oo aad ka maqan tahay wayna ku xiisi doonaane. waxaanu u baahan doonaa inuu iska soo xiriiriyo waqtina kula qaato adiga. Number 4. markasta inay u sheegto waxa uu isagu yahay, yacni adiga halka uu ku joogo saaxiib miyuu ku yahay mise jacaylkaaga dhabta ah weeyaan. runtii tani waxay keentaa in adigu ku jeclaado. tusaale wiilkaad isla socotaan soo isagu wuxuu inta badan kugula dhaqmaa sidii saaxiib oo kale, adigana waxaad u sheegtay inuu yahay jacaylkaaga. sidoo kale in adigu kuu yahay qof aadan ka ahaan karayn ma kula tahay in sidaasu sii ahaan doono. mid waa macquul qalbi dhagax leh, kaasoo kale waa macquul. Number 5. gabadhaan ka caajisan raadintiisa iyo danayntiisa joogtada. wiilka haddii gabadhiisu soo raadin weysa muddo islamarkii waxa uu dareemaa inaan loo baahnayn. waxaana adkaan doontaa in dib loo fahansiiyo, waayo wax kasta waad dhahdaa marmarsi ayuu ka keeni karaa. markaad mar walba danayso gacantiisana aadan si fudud ku daynayn, dabcan gacantaadana si fudud uma dayn doono. wuxuu rabi doonaa inaad sidaa u sii ahaan doontid. Number 6. qofta kula hadasha hadal gaaban oo ay ku jirto ammaan iyo danayn. raggu aad bay u jecel yihiin ammaanta. maahan midda adiga waad qurux badan tahay, sidaas ayaa tahay jidhkaagu wuu diyaarsan yahay. maya, waxyaabahaas maahan. inaad ku ammaanto dadaal uu sameeyey, inaad u sheegto ama aad ku ammaanto sida waalidaad u jeclaatay xitaa hadduusan ku jecleen adiga. waxay tahay in adigu kaa arki doono in badan inaad kalsooni qabto. hoos inaad ugu hadasho waa ixtiraam aad ixtiraamaysid isaga. afdheernimada iyo hadalka waaweyn ee kor loogu hadlo waaba lagu caajisaa. 7. midda siisaa mudnaanta uu leeyahay oo uu sheegtaa ama tustaa inuu la mid ahayn dadka kale ee isaga asaagiisa. waa in qofkaasi kuu yahay mid aadan marna ka ahaan karayn adiga. waxay qorxisaa qalbigiisa waxayna u dejisaa jawiga. xaqiiq waxa ah in badan kugu kalsoonaan doona. Number 8. qofta subaxa hore wacda kuna dhahda subax wanaagsan, sidee tahay iyo waxay la mid ah. waa inaad ogaataa raggu aad bay u jeclaystaan markay kala kulmaan lamaantooda danayn iyo ka fikirid iyo in la tuso xishmeen weyn. dhab ahaantii tani wuxuu ku dareemaa kalsooni wayna farxad gelisaa. Number 9. caawiyihiisa qaaska ah. midagow wiil hadduu haysto qof caawiya markasta dhib iyo dheef garab istaagan runtii weligiis ma ilaawo. marmarka qaar qalbiyadeenna waxaa soo mara dad runtii aadan awoodin inaadba ka saarto wax kasta ood samayso, yacni saameyn weyn ayay ku yeesheen nolosheenna. waa kuwa adiga ku ahaan doona wax kasta, wayna adag tahay inaad ilaawdo. waa sidaasoo kale caawi waqti walba. maxay Soomaalidu u dhahaan anigu manin baan caabinaya. run ahaantii comments badan ayaan ku arkay. lamaanahaga inaad caawiso waxay kordhisaa kalsoonida iyo garab istaaga. xaqiiq way jeclaystaan. 10. mid ka fikirta qorshaysana noloshooda.
yacni waxaan kala jeedaa lamaankaaga oo aad dhahdo si wada jir ayaan sidaas u samayn doonaa arrimahiina oo tusto inaad si weyn uga fikiraysid aadna qorsheynaysid wax walba iyaduna waxay kor u qaadaa rabitaanka uu ku rabo adiga waxay kordhin doontaa jacaylka uu kuu hayo mararka qaar weydii su-aashan oo kale weli ma ka fikirtay guurkeena kadib waxyaabaha aan samayn lahayn 11 gabadha markasta u quruxsan isaga markasta uu doonayo inuu kula kulmo ama uu ku arko adiga adiguna aad si qurxoon u soo labisato aadna u muuqato mid qurxoon raggu way jeclaan doonaan raggu way jeclaadaan wax kasta oo qurxoon adiguna si fudud waad ku qabsan kartaa qalbigiisa hubaal wuu ku jeclaan 12 qalbi furnaanta tusaale wiilkan waad isku dhacdeen waxaad og tahay isagu inuu yahay mid xanaaq badan adigoo qalbi furnaan muujinaya inaad la xiriirto runtii naxariis ayay dareemaan waxayna jeclaystaan in markasta sidaas aad u ahaato sow badi qalbi furnaanta 13 mid mar walba u dhoola caddaysa isaga in badan ayaan ku soo celceliyaa dhoola caddaynta waa soo jiidasho qarsoon waxay ku siisaa qurux dabiici ah waxayna kaa dhigtaa mid romantig ah u dhoola cadday markaad aragto dhab ahaantii way jecel yihiin gabadha furfuran dhoola caddayntana ku qurxoon number 14 gabadhoo keliya miyaa sabrais loo sameeyaa tani kuma qasbanid laakiin way ficnaan lahayd inaad sabrais u samayso waayo wuxuu kor u qaadaa ka fikirka waxa uu og yahay sabraiska in ragoo keliya ay sameeyaan laakiin dumarku aysan samayn so wuxuu la yaabi doonaa ama ka fikiri doonaa qaabka aad adiga sabraiska ugu samaysay so waxa uu ogaan doonaa ama jeclaysan doonaa adiga iyo shakhsiyadaada yacni wuxuuna arki doonaa inaad wax waliba u tahay kolay qalbigiisa wuu jeclaysan doonaa sabraiska haddaad u samayn karto way ficnaan lahayd 15 gabadha kalsooni ku qabta nafteeda oo waxyaabaha qaar aan ku raacin isaga kana hadashaa waxa iyada dhibaayo daciifnimana inaysan u muujin mar walba waa inaad ogaataa in midaasi keeni karto inuu kula dhaco adiga ka hadal wax walba uu ku dhibaya ayna adag tahay inaad samayso ama si aad ka soo horjeedo fikirkaas waa mid aad isleedahay dano kuguma jiro sharaftaadana uma wanaagsana number 16 subscribe garayso kanaalka haddii aad saaxiibadaada u sheer garayn karto wax badan ayay noqon lahayd like garee muuqaalka taasi waa wax iska yar aniguna wax badan ayay tahay wax kastaad doonaysaan inaad i weydiisaan instagramkayga la soo xiriira in badan ayaan arkay ribilaayadiina instagramkayga cabdiraxiim cali kaas igu dhaafa fariinta ama si fudud barofeelka u gal dan aboutska dooro kadibna qaybta hoose instagramka wuu saaran yahay ku dhifo si toosa waxaad u imaan doontaa instagramkayga waa intaas saaxiibayaal hab inay ku anfici doonaan insha allah intii muuqaalka xiga nabadgelyo farxad ku jira dhammaantiin